والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي باكم حسن وحنوسو قبوي دورشدي كرسيغا سديتني اللح إبر سديتني اللح وما أنت كوقف صومي دورشدي كوقف صومي سي مقالة البلدوينة ديكان دورشدا لبعض هيرشبيلة عفوا waxaan marka hore hadalkayga hore iyo furitaanka hore aan halkaan ka gudbay oon aanan ku xusin marti sharafka aad u qiimaha badan oo isugu jira baarlamaankii hore ee 10aad iyo baarlamaanka cusub ee 11aad in badan oo dhaarsugayaal ah iyo senataro saxaafadda dhammaan ka soo qaybgalayaasha faraha badan waad mahadsantihiin iyo abniga haddaan u gudubno natiijadii doorashada sidaan ay u kala guuleysteen Axmed Dayib Axmed wuxuu helay natiijada codadka 24 Fahad Daahir Axmed wuxuu helay 70 cod ergada soo xaadirtay cadadkeedu wuxuu ahaa codka halaabay waa 3 cod totalka ergada halka ku soo xaadirtay codeysay waa 97 erga ayaa codeysay totalka doorashada sida ay u kala guuleysteen 70 oo Fahad Daahir Axmed uu helay iyo Axmed Dayib Axmed oo helay 24 cod waxaa ku guuleysay kursiga nambarkiisu yahay 86 baarlamaanka 11aad Fahad Daahir Axmed midaas waa natiijada horudhaca ah waxaa kale oo garbahayga taagan guddiga doorashada heer fiid guddiga leeyahay federaalka iyo guddiga khilaafaadka ayaguna federaalka gudoomiye xalinta khilaafaadka gudoomiye ku xigeenkii guddiga xalinta khilaafaadka ninka la yiraahdo Maxamed Barre iyo engineer Mahad oo ah asaguna wakiilka guddiga fiidka federaalka waxaan aan leeyahay ilaahay baa ku mahadsan sida quruxda badan noogu soo gabagabeeyay si qurux badan oo waadix ah oo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ka daawanayso ayaa doorashadaas noogu dhamaatay waxaan leenahay in kuraasta hartayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida ay sin lamid ah noogu dhameeyo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين، على رسول الله وصحابته الكرام أجمعين. القوة عن تأسيسنا يا تكفي شلي ماشان دباتو كسوق قارتي يا رب تسدو كوبا سلام إلهي أنت لما تبيه ومحريستو أنت داو عانا إلهي وحوكو وديو وعفمان قدر نسيب marka labaad waxaan mahadcelinayaa maamulka doorashada gudoomiyaha xubnaha howlwadeennada dhammaantood waan u mahadcelinayaa shaqada wanaagsan iyo waqtiga ay geliyeen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa marti sharafka xildhibaanada labada aqal saaxiibada ee ka yimid safar dheer soo galay ee maanta inay joogaan marqaati inay ka noqdaan u yimid ayagana si gaar ah u mahadcelinayaa waxaan rabaa halkaan inaan ka iraahdo laba kelmadood mid aniga ugu saabsan iyo mid ragga soo socda hadda banaanka taaga soo gali doona ku saabsan doorashooyinkii dalka ka dhacay kullayda inta aniga garaadkayga soo gaari karta waa doorashadii carto iyo wixii ka dambeeyay tii carto un baanan joogin inta kale waa dhex taagnaa hadba sidaan ku dhex taagnaaba laakiin mar aniga liyo codeynaya tan ay ugu horeysa marka tan waxaan ka arkay waxaan ka arkaan rabaa inaan u sheego qolooyin kale oo soo socda marka nin xoolo dhaqanaya waxaa la yidhi sheekhu intuu uu yidhi ducee marka uu duceeyay wuxuu yidhi xoolaha kuu barakoobi doona abaartu waa ka baxaysaa marka ninkii intuusan abaarta ka bixin baa calool xanuun badanaa ku dhacay aad buu u shumay shubankii kabacdi baa xoolihii u barakoobeen marka nin baa u yimid oo wuxuu yidhi nin sheekhan ka ducaystaan rabaaye sheekh hebel baan u socdaa
warkaas shubanaa ka horreeya ha u tegin marka doorasho dadban shuban baa ka horreeya loo adkaysto intaa markii laga soo tago waxaan ilaahay ka rajaynayaa in xildhibaannimadan ay noqoto mid si saxa u matasha dadka uu matalo tirsigeedu yahay eber 86 wuxuu noqon doonaa mid matalo beledweyne wuxuu noqon doonaa mid matalo hiiraan wuxuu noqon doonaa mid matala hirshabeelle wuxuu noqon doonaa mid matala soomaaliya intaasba waa loogu adeegi doonaa walaashay khadiijo maxamed diiri ayaa taagan halkan marka mar labaad iyo mar saddexaad sida loogu soo noqdana ayadaan ka baran doonaa waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah